waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo arrimo aanan jeclayn inaan ka hadlo hadda ka hor. waxaa aad dhagahayga uga batay dhallinyaro hawada isu marinaysa qabyaalad oo wax walba isku hayaanba u beddelaya qabyaalad. oo ayaga inta iska gudbaan ummad dhan ijaafeynaya runtii. marka ummadni in la jaafeeyo ma fiicna, laakiin haddii ummaddaada la ijaafeeyo ama dadkaaga la ijaafeeyo, qof dhulka ka dhashay ma jiro sidiisaba. qof walba qabiil u kasoo jeedaa. marka maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo runtii arrintaas. waxaa jirta in adduunku heerar badan soo maray, dhaqamo badan la soo qaatay, diino badan adduunku soo maray. waxaan rabaa marka inaan ka hadlo qabiilada ka mid ah oo inta badan samada isla jira runtii, oo inuu dadka ka fiican yahay u maleeya, haddana dadka ugu liita runtii dhinac walba haddii la fiiriyo. meeshuu qabiilkaasu ka yimid macnaha bal asalkiisa wuxuu yahay. casri jaahiliyadii waxaa jiri jirtay waxyaabaha hadda laga xishoodo runtii inay waxyaaba caadi ahaayeen runtii. ayna soo bilaabeen nimankii la dhihi jiray reer galbeedka. waa wax qof kolley diin aan lahayn oo ku dhaqmo runtii. waana waxa la yidhaahdo incestiga, ama inaad u galmooto qof gayaankaaga aan ahayn inta aadan geyin hooyada, walaasha haddaan nin tahay, habaryarta haddaa qof dumara tahay, aabbaha, walaalka, abtiga, adeerka. marka arrintaasu arrin caadiya iska ahaan jirtay. oo waagii hore caddaanku waxay dhihi jireen waxaan diidaynaa dhiiggeennu inuu beddelmo, sidaa daraaddeed aan u samaynaynaa macnaha arrintaas. waxaa marka dadkaas ku dayday runtii carabta, oo iyaduna aan diin lahayn, oo hadda laftigeedaba diinta aan aad ugu fiicnayn runtii, marka laga reebo nabi maxamed iyo asxaabtiisa. waxaa dhaqankaas marka uu ka jiray
meel ka mida dhulka carabta oo ah waddanka yemen runtii. yemen dhaqankaasu caadi uga jira iyagoo ka soo manguuriyey kolley waddamadaas reer galbeedka ah oo diinta aan lahayn oo boqorradu ay sheegan jireen ilaahyada. marka waxaa jirtay wiil howlahaas ku dhashay oo ka yimid oday gabadhiisa u tegey oo saas ku uureeyey runtii. wiilkii wuu dhashay isagoo wacal awowgiis dhalay ah. markuu xoogaa soo kobcay waxaa looga maaro waayey tuuganimo looga maaro waaye. si kastaa la yeelay, wax kastaa lagu sameeyey, tuuganimadii waa looga maaro waayey ninkaas odagaa. magaca loo bixiyey marka oo ah daar ood. war daaraha nooga ooda. ilaa si kastoo la yeelay waa maaragtay waa loo maaro waayo mugti. daar ood aa loo bixiyey. heer waxaa la gaaray marka gacma laga xiro. gacmaha markii laga xiray wuxuu bilaabay inuu lugaha ku dhegsado koollo oo lacagtii oo dhulka iska taaltaalla. ilaan waagaas dadku aamina iska ahayn. dhulka iska taaltaalla iyo dahabkii iyo wixii inuu cagaha ku qaado. si kastaa la yeelay markii la ogaaday inaan si kasta oo la yeelo laga celi karin waxaa dhacday in la yidhi waagi hore waxaa jiri jirtay qofka haddii loo maaro waayo sidiisaba oo macnihiisa la bixin waayo in la masaafuriyo. sidiiyaa waxaa la yidhi war ninkan markuu xoogaa soo roonaaday oo teenage xoogaa soo noqday aa la yidhi war niyahow maaragtay waa ku masaafurinaynaa. oo gacmaha inta laga xiray doon la saaray toosu u soo noqon macnaha doontase u soo socotay. lafaa lasoo siiyaa la yidhaahdaa kolley. waa laga yaabaa kolley inay jiscin soo siiyeen. inuu noolaadaba lama rabin hataa iska dhaaf wax kale. saasuu wuxuu ku yimid dhulka soomaaliyeed. oo markaas ay joogeen ilma samaali. magaca soomaali iskama imaanin, wuxuu ka yimid samaali. nin maaragtay dhulka deganaa oo asalkiisu kushuti yahay. kushuti dadka la yidhaahdo. meeshuu marka yimid waxaa joogay erir. ilmo erir oo ah hawiye iyo dir.
halkaasuu yimid doontii uu ka soo degay isagoo sidii gacmaha uga xiran oo doontina ka soo degay waxaa la kulantay doombiro direed gabadhuu odayga direed dhalay aa la kulantay gabadhii aa xarig ka furtay isna maadaama asxaan loo falay gabadhu ariga markay soo raacdo wuu u waraabin jiray ariga arigiioo marka waxaa la arkay xoolihii kale oo gabdhuhu kale ay raacayeen maaragtay ka qurqurxoon oo waa la yaabo marka arigan intuu tagaa waa la soo raacay maalin dambe waxaa soo raaceen hawiye iyo dir sheekh axmed xaawiya iyo odaga direed magacu hawiye maaha waa xaawiya xaawiya dhihi jir waa soo raaceen gabadhii waa ka soo daba dhundhunteen waxay arkeen dhinkaanu u waraabinaya maarta gabadhii ariga waa lagu soo orday waxaa li bal qabta oo weydiiya qofkaan meeshuu ka yimido su u socdo geedow kore geedkii markuu koray aan lii war soo deg ilaa soomaalidu waagii hore qofka haddaysan aqoonin way takoori jireen runtii inta badan qof meeluu ka yimid aan la aqoonin waa waxaa hadda dad badan oo maaragtay nasab dhiman lagu tilmaamo lagu samayn jirayoo markii la arko ayagoo meel loo raacan la arag la takoori jiray sidii marka ay maaragtay uu yidhi waa soo degaa laakiin inaan qof ku soo degaan rabaa jaankadu waxay nagu soo gaartay in odaga direed uu dhabarka u dhigtay saasna uu ku soo degay dadkuna waxay ahaayeen runtii dad aad u martisoor maaragtay badan oo deeqsiyaala maadaama ninkii nin gabadhii u waraabinaya macnaha arigii uu noqday oo uu xoogaa maaragtay ciidan halkaas xoogaa uu ka noqday maaragtay lagu adeegan karo sidii yaa lagu daayay markii la waraysto oo intaa ka timid oo meeshuu ka yimid uu sheegay oo sababtuu u yimid oo waxaa dhan uu sheegaa la yidhi iska joog halkaaga diraa wuxuu ku daray gabadhi marka sidii yaa daar ood runtii uu ku bulaalay ma fahamti marka qof asalkiisu saas yahay oo cunug awowgiis dhalay wacal awowgiis dhalay uu yahay inuu isxariifiyo runtii oo dadka inuu maaragtay ka fiican yahay iska dhigo waa wax lala yaabo waxay inay gambadaan ahayd macnaha oo maaragtay indhaha qarsadaan runtii dadkii soo dhoweeyeyna ay xushmeeyaan oo marti edab leh ay noqdaan runtii laakiin sida marar badan dhacday jidkaas maysa qaadan runtii jid kaloo qalloocan ay qaateen dhowr jeerna waa eedeen
mar walbana wacad buuxin iyo iska daaya waa martiya lagu hayaa macnaha oo maaragtay la leeyahay sheekadu markay xumaatana hawshu meeshay gaarayso waa la yaqaanaa runtii oo dad wax isku haya maaha waa hawshu markay xumaato waa agay wax ka dayaayen marka arrintan hadda aan sheegay anigu arrin ma aha runtii aan iska faafrikeeyey aniga oon keenay arrin taariikha runtii maaha wax dad aan ku ijaafaynayo runtii laakiin taariikhan ka hadla qof walba meeshuu ka yimid inuu ogaado oo uu sidaa u dhaqmo macnaha qofka hadduusan meeshuu ka yimid uusan ogeyn meel u socdana ma garan karo marka waxaan ka aqriyay buug ku qoran farta carabiga laakiin af soomaali ah waagii hore af soomaaliga waxaa lagu qori jiray farta carabiga waxaa la qoray dadaa waxay yidhaahdaan waxaa la qoray af soomaali soomaali lama qoran laakiin waxaa la qoray far soomaali laakiin af soomaaliga markii hore waa la qori jiray farta carabiga lagu qori jiray inkastoo dad badan ay ku doodeen markii far soomaaliga la qorayay in carabi laga dhigo sida urduug oo kale marka afka soomaaliga waxaa lagu qori jiray far carabi waa baxaa oo carabiya la qoraa macnaha luqaddii waa soomaali waa sida urduug oo kale urduuga luqadda la yidhahdo oo bakistaaniyintu ay ku hadlaan marka taasuu ku qornaa buug aad u duqan uu ahaa runtii oo aad maaragtay sheeg taabashadiisa xataa markaad taabato inuu go' laga yaabo wax dhow maaha mar horaa la qoray taariikh dad qoreen waayo oo run ah marka arrinta nimankaas waa saas waxaan leeyahay bal cagaha dhulka dhiga cagaha maaragtay dhulka si fiican u dhiga maadaama aad halkaasba ka timaadeen wax laga faano waa nin maaragtay in oday gabadhiisi u tegay uu dhalay inuu hadlaba maa runtii wacalka kalaaba roon oo dadka islaamiyada ay dhalaan atleast inkastoo diineen aysan fiicnayn haddana waa kala roon yihiin oday maaragtay nin awowgiis dhalay ceeb ka weyn ma jirto intaasaan kusoo gabagabaynaa maanta